is Jibrionis ninka kule Jibrionis su'aalka inta ninka Jibrionis 15 kun oo dibi hal bil dhoofinaya waa kuma shirwacna waxaan leeyahay Jibriil iyo Aadan iyo Nuur kuma kala xigaan adna Jibriil Muuse tahay annaguna Yoonis Muuse annaga ba iska ka habeen xigna beelweynta Jibrionis waa la fadhabar waa tolkayo ay iyo xumaan naga ma gayaan waana reerka ugu laandheeraysan Gadabuursi laakiin maanta walaalka Aadan hayo ayay xumaan iyo caruuraha yaryar Jibriil Muuse afguduud fariinha noogu soo dhiibinay war tagasti empire of government the people of Gadabuursi 50% anaga microfinances kale bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo aqoonyahan Farxaan Jaamac Nuur degan gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda Boorama kamid dhalinyarada beesha weynta Aadan Yoonis waxaan maanta halkan fariin soo gudbinayaa dhammaan beelweynta Jibrionis oo ragaan magaca Yooniska wadaag waxaan leeyahay beelweynta Jibrionis cayiga ma mudanidi oo cayda hadaan inacaayo de magacii Yoonis baan kula wadaagaa oo sokeeyahaygi baad laakiin ta aan diidanahay waxa weeyaan 4 sano ayaad mansabka Gadabuursi ugu sareeyay Jibrionis haystay laga soo bilaabo 1993 waxaan dooranay Cabdiraxmaan Tolwa madaxweyne ku xigeen buu noqday 97 waxaan dooranay Daahir Yaalakaay wuxuu ahaa 5 sano madaxweyne 2002 buu madaxweyne hadana noqday oo cigaal uga dhintay waan taageernay hadana beelweynta Aadan Yoonis ilaa maalintii 33 sanadood afkuun buu Aadan Yoonis juuqda hayay oo ku ixtiraamayo cod iyo lacag iyo hiil iyo hooba aan kula horjoogo oo ka ilaalinaynay maxad casiyo habar cafaan aan ka difaacay ma maanto kalaato oo anagu wasiir helay oo codkayagii ku helay 12 kun oo cod buu Aadan Yoonis siiyay wadani oo maanta anagu aan ku hananay kursiga aan maanta haysano kursiguna waa wareegto shalay reer Nuur baahayay darhada shalay adiga hayay darhad reer Nuur baahayay maanta aniga hayo bari Cali Yoonis baahayne makaahil ba kursiga iskale waxaan leeyahay Jibrionis walaalkay beelweynta Jibrionis waa la fadhabar waa tolkayo ay iyo xumaan naga ma gayaan waana reerka ugu laandheeraysan Gadabuursi laakiin maanta walaalka Aadan hayo ayay xumaan iyo caruuraha yaryar Jibriil Muuse afguduud fariinha noogu soo dhiibinay shirwacna waxaan leeyahay Jibriil iyo Aadan iyo Nuur kuma kala xigaan adna Jibriil Muuse tahay annaguna Yoonis Muuse annaga ba iska ka habeen xigna intaba adeer baad u tahay ixtiraam oo dhexdhexaad ka noqo adeerka Sheekh Cabdikariin Sheekh Cismaan baan annaguna saaxiibnahay oo kugu ixtiraamaya cashuurtana waxaan reerka tagasti empire of region Awdal ugu badan magaaladaas oo la lugeeyo Aadan Yoonis baa bajaaj keenay magaaladaas oo diyaarad jaad la saarin aniga aabahay Mawlid Walaase iyo dhada diyaarad saaray jaad war tagasti empire of government the people of Gadabuursi 50% anaga microfinances kale wajaala waxa dibi ka dhoofiya waa Aadan Yoonis 80% dhinaca dhaqaalaha Soomaaliland nimanka soo galay tagasti empire-ka waa Aadan Yoonis Soomaaliland way ogtahay nin 10 kun oo dibi ka dhoofiya wajaale Aadan Yoonis baa laga helayaa ya waxaan ka ganacsanaa Boorama waxaan ka ganacsanaa wajaale waxaan ka ganacsanaa Berbera waxaan ka ganacsanaa Hargeysa ilaa inta u dhaxaysa ilaa ceer gaaban tukaana ku leenahay who is Jibrionis ninka kule Jibrionis su'aalka inta ninka Jibrionis 15 kun oo dibi hal bil dhoofinaya waa kuma tagastig empire annaga 50% ka Gadabuursi waxa la yiraahdaa microfinance economic hadii lagu qanacayo oo la ogiyay Gadabuursina weydii umada Soomaaliland weydii cashuurta u badan iyo dakhliga u badan Soomaaliland cid soo gelisay Gadabuursi magaca Gadabuursi sidata waa Aadan Yoonis weeyaan laba calina la weydiin maayo waxaan salaay Jibrionis war maanta hal isku dul qaato oo waxa way waad dhacdeen xisbigii kulmiyaad raacdeen Chinese baa nahay ayaa tiraahdeen
Chinese kiina isku soo dhig 8 kun oo cod 17 kun 7 kun waxa laga keenay Baki Saylac iyo Lughaya iyo Dila 8 kun baadayso 12 kun buu keenay codka aad nagula xisaabtamayseed leedahay maanta wasiirka iyagii buu qaatay aadayoonis 12 kun buu ka hiyo wadani siiyay xisbigii kaana banaanka keenay wadanina uu siiyay codka aad wadani ku leedahay waa misaadu 3 kun ma gaaro reedidu ba 3 kun kule ay baha laguma tagay xisbiga waxa lagu tagay by vote by cod by card ay way dhamaatay waqtigii Landheeri iyo dhaadhaha iyo Chinese iyo waxa la loogayo gorayahaad noqon weydo waxaan ku soo gabagabeynayaa Jibriil waa tolkay waa la fadhabar ayna nagama gayaan xumaanna nagama gayaan maantana anugu baa xilka haya barina adigu baa qabani xilkuna waa wareegto hal isku dulqaato